ninku hubaysnaa Bambo gamceed ayaa codsaday inuu la kulmo madaxweynaha wadanka FARANSIISKA MACRON xilli dalkaasi ay ka socdaan dibadbaxyo looga soo horjeedo qiimaha shidaalka oo kor u kacay wuxuuna ninkaasi codsanayay in dadka dibadbaxa dhigaya loo ogolaado inay la kulmaan madaxweynaha wadanka FARANSIISKA MACRON ninkan ayaa lagu xiray galbeedka wadanka FARANSIISKA xilli la arkayay isagoo gacanta ku sita Bambo gamceed waxaana uu ninkaasi qabay dharka dibadbaxayaasha dalkaasi ay xirtaan waxaana uu isdhiibay saacado uun kadib markii booliska FARANSIISKA lagu soo wargeliyay arrinkaasi dacdadan ayaa imanaysa xilli 10,000 oo shacabka wadanka FARANSIISKA ahi ay wadaan dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan qiimaha shidaalka oo sare u kacay sida laga soo xigtay booliska maxalliga ah ninkan 45 jirka ahaa waxa uu gacanta ku sitay Bambo gamceed isla markaasna waxa uu codsaday inuu madaxweynaha wadanka FARANSIISKA MACRON uu kula kulmo gurigiisa waxa uuna qayb ka ahaa ninkaasi dadka mudaharaadayay ee ka caraysan qiimaha shidaalka ee wadankaasi FARANSIISKA ninkan ayaa markii hore waqti badan la qaatay dibadbaxayaasha kuwaasoo ku kulmay agagaarka xarunta laga dukaamaysta ee Space and Show sida saraakiishu ay u sheegeen wakaaladda wararka ee lagu magacaabo AFP Bernard Gonzalez oo ah sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka ayaa sheegay in waxyaabaha qarxa ee ninkani uu gacanta ku sitay ay hadda baarayaan khubarada bambooyinka isla markaana uu yahay mid aan been abuur ahayn wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in dad ka badan 30,000 la filayo maanta inay ka qayb qaataan dibadbaxa ka socda wadankaasi FARANSIISKA gaar ahaan magaalada caasimadda u ah wadankaasi ee Paris waxaana ciidamo booliis ah oo gaaraya 3,000 oo askari loo daabulay gudaha magaalada caasimadda ah oo kaliya si ay uga hortagaan dibadbaxayaasha سعيد أحمد تمريسة وراركة تلفزيون كعالمي جاها ستارة